Ma ogtahay in dadka nolosha farxadda badan haysta aysan ahayn kuwa haya lacagta ugu badan, balse ay yihiin kuwa fahmay dareenkooda. Maanta waxaan ku baran doonaa sirta ay adeegsadaan dadka guuleystay si ay u gaaraan degenaansho maskaxeed, xiriiro wacan, iyo nolol la jeclaado. Garashada dareenka ama emotional intelligence waa awoodda aad u leedahay inaad fahanto dareenkaaga, hadduu ahaado farxad, hadduu ahaado xanaaq, hadduu ahaado welwel. Waxaa la ogaaday dadka leh garasho dareen sare in ay ka horumarsan yihiin dadka kale, haddii aad ahaato dhanka shaqada, haddii aad ahaato dhanka xiriirka, haddii aad ahaato dhanka nolosha. Haddii aad fahanto emotional intelligence, waxaad noqonaysaa qof kalsooni leh oo dad kalena si wanaagsan ula macaamila. Feejignaanta maskaxeed mindfulness waa markaad si buuxda uga warqabto waqtiga aad ku sugan tahay. Miyay kuu dhacday inaad la hadasho qof adigoo aanan maskaxdaadu meel kale ay jirto oo aysanba la hadlaynin ninkaad joogto? Mindfulness waxay kaa caawinaysaa inaad la dagaallanto walwalka, inaad dejiso maskaxdaada, inaad ku noolaato nolol wanaagsan waqtigan la joogo. Marka labadaas isku darsato, emotional intelligence iyo mindfulness-ka, waxaad heshay awood weyn inaad iska ilaaliso falcelinta degdegga ah, inaad la macaamisho dadka kale si xikmad leh, iyo inaad fahanto noloshaada. Hadda waa markii aad kor u qaadi lahayd maskaxdaada, awooddaada, iyo mindset-kaaga. So muuqaalka maanta saas ayuu ku eegyahay. Haddii aad jeceshahay nala soo gaartay, fadlan waxaan kaa codsanayaa channelka subscribe noo saarto, like noo dhahdo, ana u sii share gareyso walaalaha.